السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا محمد أحمد إبراهيم أورير وجير وسطة كان سوجيدو وجير كاونتي وعن كم دهاي حسبية كانودا كاونتيا مركا وحندونا يا ما دام إلكشن كي دور الشدة إسوس عطو أمرلو أنكو ذكرينه إن أرما حساسية عن كهذا لنا دور الشدة كوسابسن تارك سجالك سيدا أكسون تيهن دتك ريرميجا وشير وحقوق بدين دتسير ريرميجا بقول كي بسيدتن إيشان دتكاس أو كل جود بونتاي نبوين حق نولشة تاسو كنتو أبارة فربضن وحكلو شراء دجال السكية حوله لسكنها dhibaatooyin fara badan dadkii masaakiin ayay noqdeen xoolihii ba ka dhamaada iyo dhibaatooyin fara badan ayay la kulmaan anigu waan garan lahay dhibkan goorta la xalin doono maxaa yeelay dad si fiican arrimahan uga hadla miyaan jirin بس مدح بانجرين بس member of parliament كيبا هالكرينين بس الدولة دي بالا لها هالكرين وقرر لنا هاي قف وهذا لنا national government ميال الله هاي أرمي فربضن أيا ماشي نبوين باكتاغن سيدا درتت وحان لاي هاي خير وشير خاص أهان ماشي أنا عن كلمة ووجير وست ما لا أقول مساكين بدن أي كم تاي دباتوين في بدن بيلو كل من سنة كستن وحصاد دور لانين عصون MB واحد هرمرة أو مسك حجلة أما ضدك أي كفاية دستين كمان مقدار مركن waxaan dadweynaha baaq ugu diraya anigoo magaca kaanuuda ku hadlaya inaan soo xulanay candidate-kii dadka isu keeni lahaa walaalahayow oo la yiraahdo maxamed axmed khaliif dhibka meesha ka taagan waxa weeye dadkii dhibaatooyin fara badan ayay la kulmayaan waxa ugu wacan ماشي عدالة ماله سنان ماله مني ما مجرت ولا التنمى ماله وحقبت ماله درسني ما ماله وجر وستنا وقول آد وين عد هذا أنا كان كل شو متان كل يوم ما تقولي فربنا يا ماشي شو دقن ولا لهنا سيد هذا مثل مالك وكله معو سمتر iyo kook idris fardaano doodi kala far badan ayaa meeshii nala jooga marka dhibku waxa weeye dadka ayaga ahaa in ayagana maamulkii iyo waxqabadkii iyo howlihii meesha ka socdeen qayb ay ka sinaadaan sida hadda juuraanka oo kale waqtigan dhashay ilaa hadda dadka wada degneed walaalaynu ahna hadda waa wada degnay resourceski wax qabashadii ayagana in qayb laga geliyo oo la tashado la fadhiisto odayaashoodii si ala si ay jecel yihiin la tashi wax wada qabsi oo walaaltinimo ah in la sameeyo marka waxaan baaq u dirayaa dadka reer wajeer west dhammaan idinkoon eegaynin reer hebel qabiil hebel ama juuraan ama duwadiye in midnimo aad ku wada shaqaystaan oo walaaltinimo ah oo ma aragtay diinta muslimka ay ku dhisan tahay darisnimo ay ku dhisan tahay
waxaan rabnaa dad nin midayn kara dadweynaha ku nool Wajeer West ha ahaado Juuraan ha ahaado Dagoodi